waxaa ku dhex jira qodob ilaalinaya in uusan dhicin firaaq dastuuriya uusan dhicin. isweydiina marka firaaq dastuuriya muxuu yahay? qodobka sidaan ayuu baarlamaanka u ansixiyey. waa qodobka saddexaad oo sharcigii doorashooyinka dadban aan ku ansixinay. waa xilhaynta hay-adaha dastuuriga ee dowladda. faqradda koowaad, si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka, baarlamaanka tobnaad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la dhaariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11aad ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka 6aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka beddelka lagu sameeyey sharciga lambar 27 bishii 6aad 2016. fasiraad yar waxaan u baahannahay marka qodobka 6aad qaabka wax loogu beddelay inaan fahmo. horta halkan waxaa qoran baarlamaankii 9aad si uu ilaaliyo vacuum inuusan dhicin ama firaaq dastuuriya uusan u dhicin, ayuu wax ka beddelay qodobka 6aad ee muddada xilhaynta ee baarlamaanka. baarlamaankii 9aad waxaa la dhaariyey bishii 8aad 2012. xilkiisi wuxuu dhammaanayay 2016 bishii 8aad 20 taqriiban. laakiin baarlamaankan tobnaad, baarlamaanka 9aad ilaa wuxuu sii joogay December 27 2016 oo la dhaariyo baarlamaankan tobnaad. sidaan ayuu qoran yahay marka qodobka 6aad oo aan rabo xildhibaanada inay ku buraarugaan. qodobka 6aad muddada xilhaynta. faqradda koowaad, muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. dastuurka wuxuu u qoran yahay doorasho guud oo waddanka xisbi lagu galo, markaa kadibna natiijada yacni doorashada guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qabta, yacni doorasho qof iyo cod ah, markaa kadibna natiijadii lagu dhawaaqay ayuu ka hadlaya. kan waxaan u guurinay markaa doorasho dadban idinkaan ansixiyey. marka qodobkan u fiirsada wuxuu leeyahay muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. wuu sheegay dastuurka muddada ay ka bilaabanayso. wuxuu sheegay natiijada doorashada markaa lagu dhawaaqay bilaabanaysa. meeshay ku eg tahay waa la ogyahay, waa 4 sano. sida baarlamaanka 9aad aan u soo tirinay unbaa loo tirinaya. laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay, haddii doorasho ay dhici weyso maxaa la samaynaa oo 4 sanana ay dhammaato? waxaa la yidhi waxay ka bilaabanaysaa muddada xilhaynta baarlamaanka marka natiijada ay soo baxdo la sheego. meeshii aan ka soo bilownay مثلا 27 December aan ka soo bilowno baarlamaanka federaalka, baarlamaanka tobnaad xilhayntiisii waxay dhammaanaysaa 27 December ay dhammaanaysaa. haddii xilligaasi baarlamaanka tobnaad uu diyaar noqon waayo, baarlamaanka 11aad sax, haddii baarlamaanka 11aad xilligaasi diyaar noqon waayo, hay-adihii dastuuriga ah maxay samaynayaan marka? qodobka 6aad markaa fiirisaan sharciga hadda aan meeshan ku kood garaynay oo xeer uu ku soo saaray madaxweynihii markaa jiray xasan sheekh, sida loo beddelay sidaanay ahayd. waxaa muddada xilhaynta golaha shacabka ku eg yahay marka la dhiso golaha shacabka beddeli lahaa. kan waa xeer madaxweyne ee sharcigii wax ka beddelka qodobka 6aad lagu sameeyey oo ku soo saaray madaxweynihii xilligaasi xilka hayay. wuxuu leeyahay markuu tixgeliyey baahida loo qabo inaysan dhicin maqnaansho hay-ad yacni siyaasadeed inta laga dhisayo tii beddeli lahayd. baarlamaanka 9aad
iyo madaxweynahooda oo madaxweynihii markaasi jiray waxay ilaaliyeen firaaq inuusan dhicin marka baarlamaankii sagaalaad ilaa wuxuu soo socday 27 December ayuu soo gaaray iyadoon firaaq la gelin waxaa u malaysaa annaga qodobaan ku sii darnay waxaan nidhi awooddiisa ay u dhammaystiran tahay baarlamaanka taas micnaheedu waxaa waaye maanta miisaaniyadda markaa ansixisay maanta miisaaniyadda markaa ka doodaan iyo shuruucda kaleba waa sii wadi kartaan shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE